wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa si nabadgelyo ugu wareejisay maamul goboleedka Puntland gaari u lahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo dhawaan Soomaaliland uu la soo galay darawalkii labaad ee madaxweyne ku-xigeenka Puntland isla markaana ay gacanta ku dhigeen ciidanka qaranka Soomaaliland. saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminayo la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha Axmed Xasan Cigaal iyo afhayeenka wasaaraddaasi Jamaal Cabdi Maxamed ayaa si rasmi ah gacanta ugu geliyay saraakiisha maamulka Puntland gaarigan oo ahaa nooca xaajiyada loo yaqaan isla markaana loogu adeegi jiray shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Puntland. wareejinta baabuurkan oo ka dhacday xadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland ayaa lagu sheegay hadal qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. waxaana qoraalkan lagu yiri Soomaaliland iyadoo ilaalinaysa xasiloonida daris wanaagga iyo nabadgelyada u dhaxaysa Soomaaliland iyo dawlad goboleedka Puntland ayaa si nabadgelyo ah ay ugu wareejisay baabuurkan oo lahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland. geesta kale taliyaha booliska Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadooda Garowe ayaa arrintan ku tilmaamay bilow fiican iyo wada shaqayn u dhaxayn doonta Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland. Nuuruddin Cabdullaahi Culijoog, Telefishinka Qaranka Soomaaliya.